wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo si ballaaran loogu soo dhaweeyay deegaanada galbeedka gobolka Sanaag oo saakaytii waa bari mas'uuliyiinta gobolka Sanaag oo horkacayo gudoomiyaha gobolka Sanaag Axmed Maxamed Geela Dacar iyo taliyaha ciidanka booliska gobolka Sanaag Gaashaanle Xasan Ismaaciil Gacmayare taliyaha ciidanka asluubta Gaashaanle Maxamed Digaale Coraaf gudoomiyaha ururka Nawe gobolada bari ee Soomaaliland ayaa ugu horeynba wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ana gudoomiyaha gudida mashruuca wadada weyn ee isku xidhi doonta gobolada Sanaag iyo Togdheer oo safarkiisan ay ku weerinayaan mas'uuliyiinta dawladda iyo waliba salaadiin kamida salaadiinta Soomaaliland oo ay kamid yihiin Sultan Saciid Yuusuf Daale wasiiru dawlaha wasaaradda maaliyadda maareeyaha wadooyinka wasiirkii hore ee shaqada iyo arrimaha bulshada Marweylahan Maxamed Jaamac ay kala hadleen bogcadda caanka ee haraca geedka gobka ee barxadda hoyga samatariska iyo qabashada garsoorka ee degmada Garadag oo ay ahayd bogcaddii loo asteeyay soo dhaweynta wafdigani uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ahna gudoomiyaha mashruuca wadada weyn ee Arigaabo isagoo isla markaasina halkaasi ka sheegay hadafka iyo ujeedka uu safarkiisani ku salaysan yahay dhammaan dalkeena muhiimad u leh haday tahay gobolkan Sanaag iyo haday tahay qaranka guud ahaanba wadada Arigaabo waa wado halbowle haday tahay xagga nabadgelyada haday tahay isku xidhka dalka haday tahay dhaqaalaha haday tahay guud ahaanba qarannimadeena maadaama halbowlaha tahay waxa madaxweynuhu dhagax dhigay dhawaan waxaanu ballan qaaday hore waxa loo baahan yahay inuu naga isku duuban dhammaanteen gacmaha isqabsano oo fulino waxa weeye dawladda iyo dadka isku duuban ayaa insha Allah taala qaban doona waanaynu qabsan karnaa maamulka iyo odayaasha degmada Garadag oo hadalka munaasabadani soo dhaweynta wafdigani uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland ay dhankooda ka degmo ahaan ku darsan doonaan $100,000 iyo waliba 100,000 neef sidoo kalena waxay ku dari doonaan 10 kilomitir oo wadadaasi dhinaca galbeedka degmada Garadag ka xigta isaguna halkaasi wasiirku dhagax dhigay dhismaha 10 kilomitir ee wadadaasi ku darayaan maamulka iyo odayaasha iyo waliba shacabkaasi ku dhaqan degmadaasi Garadag isagoo sidoo kalena wasiirku qorsheeyay guddi hoos iman doona gudidooda oo maalmaha foodo inagu soo haya bilaabi doona dhismaha wadadaasi 10 kilomitir ay ku darsadeen degmada Garadag sidoo kalena waxa ay wasiirkani iyo wafdigani ay kormeer ku soo mareen jeelka weyn ee degmada Garadag ee ciidanka asluubta kaasi way ciidanka jeelkaasi ay ku kordhiyeen dhismayaal cusub oo wasiirku dhismayaashaasi xadhiga ka jaray way kaliya qabteen xoogooda iyo ku qabteen iyo waxaana naga dhaxaya oo iska qabsaa oo wadada aanu ka saaranayn baan tusayna qayb ka mid ah xadhiga laga taray qayb ka mid ah way shaqaysaa qayb ka mid ah naga xadhigaysa sidoo kalena waxa uu wasiirku dhagax dhigay dhismayaal cusub oo ay ciidanka asluubtu ku dhisi doonaan si voluntary ah dhinaca kale wafdigan ballaaran ee uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan markii ay ka soo carceereen goobtaasi Garadag iyaduna ay markii ay soo gaadheen degmada Ceel Afweyn si ballaaran loogu soo dhaweeyay fardo qurux badan sidoo kalena aan yar iyo weyn aan u kala hadhin soo dhaweynta wafdigani si kastaba ahaatee wafdigan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan ee ay ku helinayaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda iyo sidoo kale qaar ka mid ah salaadiinta Soomaaliland ayaa la filayaa inay habeenimada caawa qorshaha uu socdo wafdiga uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda madaxtooyada ayaa ah bilaabida dhismaha ballaaran ee wadada iyo waliba qaadhaan ururinta wadadaasi waa Cabdiraxmaan Ismaaciil Saciid telefishinka qaranka Soomaaliland Ceel Afweyn iyo Garadag.